السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يالي دلهانتي من دافع عالم كمير وذا joogtaan booxan leenahay goor wacan wanaagsan halkan waa barxadda haween khayriyeeda ee magaalada Hargeysa isla markaasina toddobaadkiiba hal mar ku weydiina bulshada iyo shacabka ku sugan su'aalaha rayga dadweynaha ababa su'aalaha iskeensiya su'aasheena galabtana waxa ay daaranayd ababa ahay maxay ahayd taladii ugu muhiimsanayd ee lagu siiyay iyo cidii ay ku siisay hadaba dadweynaha oo si kala duwan weydiinay ayaa waxa nooga wada jawaabeen siyaabo kala duwan magacaygu waa Salmaan Maxamed Faarax aad iyo aad baan u dhawahay way Salmaan waxa noo sheegtaa taladii ugu muhiimsanayd ee lagu siiyo iyo qofkii ku siiyay halkan uga mahad celinayso taladii ugu muhiimsanayd ee la siiyo waxa si hooyaday macaan oo halkan uga mahad celinayo anigu tahriib laga soo celiyay ma wajaale marka hooyada wixii kuugu muhiimsanaa in tahriibka iska daysaa ayaa ugu muhiimsanaa wixii ugu muhiimsanaa ay siisay antaas sababtay أنا تهريب كيس كديسو وايد ما قالت تلاديو تهريبكي كوما قرشيسنا مرضى بتهريب قاتي إمك كقولة شوقة بدي حدان قاتي بير أنا تيجي لهذا أنا قاعدة مركا هو هلكو قم هو يدي بهالكم مهاد عليني سودو بيتش كاس برميديا والله عبد الحكيم الحمد لله عبد الحكيم وواحد ناشكتا تلادي ugu muhiimsanayd amba ku anfacda ee lagu siiyay iyo qofkii ku siiyay halkan uga mahad celinayso تلادي ugu muhiimsanayd ورثة قف ugu muhiimsan oo ku sii hooyin bay jirtay yaa hooyin man mahad celiye hooyada munba kula talisa taladii ugu muhiimsan ku siisay oo mahad celinaysa waayood mahadsantahay walaal ku soo dhaweynaya bejka caalamiga Sabar Media adoo magacaaga saddexan ku bilaabaya aniga Michael Ibrahim Xasan waxaad noo sheegtaa walaal su'aashii taladii ugu wanaagsanayd ee lagu siiyay intaad nooleed iyo qofkii ku siiyay midaan saaxiibayno Fandhiil Barray loo oran jiray habaysi waga marka wuxuu ku gula taliyay wuxuu gula taliyay anay inaan xamag taabin su'aasha galabta waxay tahay taladii ugu muhiimsanayd intaad nooleed lagu siiyay iyo qofkii ku siiyay halkan uga mahad celinayso assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh marka hore waan soo dhaweynayaa inkana dhamaantiin taladii ugu wanaagsanayd la siiyo waxay ahayd khayrkiyo wanaagga iyo wadada ehdina siraadal mustaqiimka in la qaado wadtala kale wanaagsan la siiyana oo aan tahay inuu garan maayo way qofkii siiyay waa qof aan ogahay waana waalidkii weeyii sababtoo ah qofka bilaadanka wuxuu wadada soo mariyay ee soo tacliimiya waa waalidkii iyo macalinkiisa marka waalidka uma halkan uga mahad celinayso ma waalidkii iyo macallimiinteedaba wadadii wanaagsaneedna waan hayaa eedina siraadal mustaqiim kuma la idiro taana waan hayaa aad baad u mahadsantahay aad buu mahadsantahay dhamaantiin su'aasha galabta waxay ka oranaysaa maxay ahayd su'aal taladii ugu muhiimsanayd ee lagu taliyay intaad ifka joogtay ase iyo qofkii kugu la taliyay wallahi hooyadii macaandee hooyada macaan baa kugu la talisay way hooyada talooyinkii ku siisay maxaa kamid ahaa inaad maxay iska dayso wax barantee maxaa kamid ah wallahi halkan ma sheegi karo halkan ma sheegi oo mahadsantahay walaal qaali walaal shaqaale way hay marka ugu horeysa waxaan kugu soo dhaweynayaa bejka caalamiga ah Sabar Media adoo magacaaga saddexan ku bilaabay magacaygu waxa weeye Cabdi Cilmi Gahayr Cawaale way Cabdi oo waxaan su'aasha galabta waxay ka oranaysaa maxay ahayd taladii ugu muhiimsanayd ee lagu siiyay iyo cidii ku siisay taladii ugu muhiimsanayd waxay siisay hooyadii iyo aabahay maxay ahayd waa islaam baynu noo diintii la baray iyo magaras diinto la baray tuko salaada saarta tuko waalidka xaqan ilaahay naxariisto labadiiba way dhinteen taasumaan anigu kaga jawaabay annaguna aad ku mahad celinay waa khayr weeyada waranku soo dhaweynay waxay ku soo dhawaataa bejka caalamiga ah Sabar Media adoo ku bilaabay magacaaga saddexan bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga saddexan waa Maxamed Aleel oo ku dhaw way wala waxaad noo sheegtaa taladii ugu muhiimsanayd inta ifka joogtay ee lagu siiyo iyo cidii ku siisay taladii ugu wanaagsanayd ee wiilkii la siiyay waxa ahayd waqti ay igu soo beegmeen laba shay inaan dalka ka baxo aan safar dibadda galo iyo inaan guursado oo aan dego safarka dibadda waxaad ka wadaa tahriib inaan ka baxo oo diirkii ka boodo marka tala la siiyay oo qof aad igu muhiim ah tala fiican siiyay taladiisi baan qaatay marka waad guursatay ma sha Allah waa guursaday way talada qofkii kugu qaalisanay ku siiyay qofkii ugu qaalisanaa taladay siiyay waxa ay hooyada macaan marka
marka hooyada xaggan uga mahad celinaysaa aad iyo aad hooyadii halkan uga mahad celinayaa waad mahadsantahay hooyo macaan shiroo joog insha Allah intaan noolahayna garabkaagan taagana annaguna aad baan kuuga mahad celinaynaa Ibrahim magacay waan ku dhaway beeshka Cabdirasaaq su'aasha galabta waxay ka oranaysaa maxay ahayd taladii ugu muhiimsaneed ee lagu siiyay iyo cidii kugula talisay taladii ugu muhiimsaneed ee la siiyay waxay ahayd taladu aabay siiyay aabba muxuu kugula taliyay kugula taliyay cidna ku gafin inaan dadka ku gafin cidna xaq darro u tagin dadkii taladu waa qaadato cid xaq darro uguma tagin wallahi horta waana qaatay marna waan sameeyay marna inta badla waan ku dhaqmaa marka ma badsatid macnaheedu way aabba baad uga mahad celinaysaa aabba baan uga mahad celinaya hooyadayba iyo waxaan ku lahaay dad inta shacab ay garanaysaa wala waxa kugu soo dhaweynayaa page-ka caalamiga ah Sabar Media adoo magacaaga saddexan ku bilaabay walaal waa ku dhawahay magacaygu Axmed Ibrahim Axmedow su'aasha galabta waxay ka oranaysaa maxay ahayd taladii ugu muhiimsaneed ee qof bilaadan ku siiyo intii aad ifka joogtay taladii ugu muhiimsaneed qof bilaadan siiyo wallahi taladii ugu muhiimsaneed maalintaas lahaa tahriib aan ka baxay taladii aabbahay gula taliyay waa ugu muhiimsaneed marka aabbaha kugula taliyay inaad tahriibi aabban bay halkan uga mahad celinaysaa ويا نونا هذا كل هالعلم. هذا ما سنتها. سودو بيتك عالمي جالس برميديا هذا كل بلاب يا مقعد صدحان. وكله مقعد نوم مبارك أبو رحمن. مبارك الشاش قلبت في حكارنا سا محيه تلذي كوجو مهم سنة أبو كوجو سامين تبنيت اللي قصيه يعدي كسيساي. تلذي يقوم سنة يقول سامين تبنيت واحد سيرنا صاحبنا حس شعب سلا وأنا القناة كحسيه واحد بالله رضونا كسبيت. marka uu ku gula taliyay ayna iska daayo waa iska daayo makana kama shaqaysidii marka marka saaxiibka xaggan uga mahad celinaysaa halkan baan uga mahad celinaya saaxiibka xasan shacab salaam aan aad oo salaamay barbaru jooga way marka hore waxaan kugu soo dhaweynayaa page-ka Sabar Media caalamiga ah adoo magacaaga saddexan ku bilaabay waan ku dhawahay magacaygu Cabdiraxiin Faysal Korse waan ku dhawahay way Cabdiraxiin oo su'aasha galabta waxay ka oranaysaa maxay ahayd taladii kuugu saameynta badnayd ee kuugu anfaca badnayd ee lagu siiyay iyo cidii kugu la talisay horta laba talo ay ugu muhiimsanaa la siiyay midna xisay hooyaday midna xisay walaashay way hooyo maxay ahayd waxay ku tiri aaminta billaah mustaqim ilaahay rumeey shariicadana ku taasnaa ma sha Allah walaalana tawlaashina waxay ahayd saad sharaftayda iyo sharaftaada si aad u ilaaliso diinta ku sugno marka labada shakhsi baad halkan ugu mahad celinaysaa mahad celiya waxaan leeyahay ilaahay cimriga iyo caafimaadka baa inii dheereey marka ugu horeysa waxaan kugu soo dhaweynayaa page-ka caalamiga ah ee Sabar Media adoo magacaaga saddexan ku bilaabay Maxamed Cabdi Muuse way waxay su'aasha maanta waxay ka oranaysaa maxay ahayd taladii ugu muhiimsaneed ee lagu siiyo intaad ifka joogtay iyo cidii kugula talisay taladii ugu wanaagsan ee la siiyay waxay inaan if iyo aakhiraba liibaanayo haddii aan diinta ka shaqeeyo taasay ugu wanaagsan yaa kugula taliyay waalidkii iyo culimada inta iga aqoonta badan ba marka culimadii waalidkaad xaggan uga mahad celinaysaa culimada iyo waalidkii ayaan uga mahad cid kasta wanaagga igu furtay ba iyadoo magacaaga saddexan ku bilaabay Cabdiraxmaan Aadan ilmo balaala way Cabdiraxmaan su'aasha galabta waxay ka oranaysaa maxay ahayd taladii ugu muhiimsaneed ee abid lagu siiyay intaad ifka joogtay iyo qofkii kugula taliyay waalidkii baa malmalaya kuwa dhalay ma malayn sabshaa ma waalidkii baa haay wiifkay keenayde ayay haay ma filaya waalidka maxay kugula taliyay wanaag u dhasamay bay igu dhahay wixii wanaagsaneed wanaag u aragtaba samee wanaagina sameeysa iyo salaada ishan waqtigan tukaday marka waalidka uu xagga uga mahad celinaysaa uga mahad celinay waa naga hooseeyana Allah u naxariisto dhaweynaya page-ka caalamiga Sabar Media adoo magacaaga saddexan ku bilaabay magacayga Maxamed Xuseen way Maxamed su'aasha galabta waxay nooranaysaa maxay ahayd taladii ugu muhiimsaneed ee qof bilaadan aan ku siiyo abo iyo wixii lagu gula taliyay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلذي ومهم سند إيه يسيو وهاي تلذي أدركيسيو هاي شقيس وأنا شقيست شقيستها ركاد أدرك نقول عادي هذا وانا مليني أدرك ولا واحد كسر دواتها بيتك عالمي قاعد Sabar Media هذا ما قاعد استحقوا بلاوي magacayga Salmaan Saciid Axmed beeshina ku dhawahay walaal way Salmaan su'aasha galabta waxay nooranaysaa maxay ahayd taladii ugu muhiimsaneed ee lagu siiyay aba nolosha saameyn ku yeelata iyo cidii ku siisay waalidkiiba horta markasta ila taliya waxay ugu taliyaan horta inaan qof bilaadan u baahnaanin intaad qof bilaadan u baahantahay horta ma aha qof matii isku dhameystiran inaan qof bilaadan aan horta u baahnaanin macnaa shaqaysato miya si kastaba aan qof ku tiirsanaan aan qof u baahanba nolosheena kaliya iskaafin karo inaan ogaado on kaliya wax qabsan karo kaliya wax wadan karo marka ay kugula taliyay waalidkii markasta ay kugula taliyaan
marka waxaad gaana gaarigayga isku wado cid kuma tirsan ها عيد كمان ترسين waalidkan badalkan uga mahadcelinaysa ها ولدك كاغو مهرنيا waxaan kugu soo dhaweynayaa beejka caalamiga ah Star Media adoo magacaaga saxan ku bilaabay magacaygu waa Kayse Salaan Axmed Cali kaysow su'aasha galabta waxay noo oranaysaa maxay taladii ugu muhiimsanayd ee lagu siiyay nolosha saameyn ku yeelatay iyo cidii ku siisay taladii ugu wacneed ee la siiyay waxay siisay hooyaday waxaana ahayd sidaan nolosha u sii wadi lahaa hayaanka waxbarasho waa ka waxbarashada xageed ka gaadhay waxaan ka gaadhay ilaa jaamacad marka taladii hooyo oo qaadatay waan qaatay marka hooyo xagga uga mahadcelinaysaa waan uga mahadcelinaya kugu soo dhaweynayaa beejka caalamiga ah Star Media adoo magacaaga saxan ku bilaabay magacaygu Ridwaan Cali Nuur Ridwaan su'aasha galabta waxay noo oranaysaa maxay taladii kuugu muhiimsanayd ee nolosha saameysay lagu siiyay iyo cidii ku siisay daniyow wallahi horta waxa la yiraahday cid wax ku siisay wada heshay laakiin cid wax ku sheegtay ma heshin cid kastoo wanaagga ka talinaysa kullay talaad ka guntaysa iyo hadal qiimo leh amba waalid ha aado amba culimo ha aadaan laakiin taladii ugu muhiimsanayd ee la siiyay waxay ahayd tala meel dhow tala la siiyo nin abtigay ah oo Maxamed Cabdilaahi leeyahay halkan ka salaamay ayaa igula dardaarmay inaanan diinta iyo cilmiga iyo aqoontaanan siideyn tiina maanta ku dhex jira wali waan wadaa marka taladii ugu muhiimsanayd kullu way farbadayn laakiin taasaan ka xasuustaan oran karaa cilmiga iyo aqoonta lagula dardaarmay tala ah ayaa ugu fiicnay cilmiga iyo aqoonta ma sameysay waan ku dhex jiraa waan wadaa taladina qaat tigaan badalkan uga mahadcelin tigi maxamed cid kastoo talay siisayba way marka hore waxa kugu soo dhaweynaya beejka caalamiga ah Star Media ku soo dhawo baan kuleeyahay magacaygu saddexan waa Mukhtaar Aadan Cismaan Mukhtaar su'aasha galabta waxay ku oranaysaa maxay ahayd taladii ugu muhiimsanayd abid lagu siiyay taladii ugu wanaagsaneed ee la siiyay waxay ahayd anigoo maartay hawadeedii iyo rabitaankayga iska raaraaca oo maartay qaadka maartay habeen iyo maalin iyo meel isla mariyo aan ogeyn ayaa tala la siiyay talada ninkii siiyayna waan garanayaa nin wadaad u ahaa jasaakallahu khayr wuxuu meel aad maraysaa maaha wadadii dariiqii toosnaa maaha Mukhtaaro ilaahay u soo noqo ilaahay maartay amarkiisa qaado oo dariiqa rasuulka raac taasay ku jirtaa maartay wanaagga adduunka iyo aakhirada adeeyaysa tamaanta la deeyayaan oo dhammaan bilaadan deeyayaan waa taa weeyaan haddii ilaahay amarkiisa qaataan ee dariiqa rasuulka ku qaataan dhammaan liibaanta qofku indhihiisu saaraya indhahaygana waa saaray jasaakallahu khayr marka taladu waan qaatay waxna waan ka arkay indhahayga ma saarayba Huda Axmed Xasan warbaahinta Star Media Hargeysa